Assalaamu calaykum asxaabta kulanti wacan oo wanaagsan waa mar kale iyo muuqaal cusub saaxiibada qiimaha badan aan kaga hadlayno arrimaha aflaamta inagoo marka asxaabta qiimaha badan kusoo qaadanayna marka la fiiriyo dhankaasi koonfur hindiya filimada usoo baxay January oo marka la fiiriyo feestooyin dhankaasi koonfur hindiya ka jira ayaa waxaa dhankaasi marka la fiiriyo gaar ahaan fanka Tamil sidoo kale Telugu filmo xiiso badan in marka usoo baxayaan waxaana kusoo qaadanaynaa muuqaalkeena maanta. haddii ay tahay markuu hore channelka soo boqoto subscribe saaro gambaleelkana furo si markasta ay kusoo gaaraan muuqaalada kala duwan ee halkaan soo gelino haddii aad horena joogtana muuqaalka like noo saar sidoo kalena sii share garee saaxiibada qiimaha badan haddii aan ku bilowno marka la fiiriyo fanka Telugu oo ilaa 4 filim usoo baxayaan filimka ugu weyn marka la fiiriyo waa filimka marka lagu magacaabo Guntar Kara oo Mahesh Babu hogaamiyay sidoo kale Srilela kula jirto filimka marka la fiiriyo tiyaatarada ugu badan asaga haysta oo filimka si weyn ayaa marka loo soo waayay Mahesh Babu marka la fiiriyo 2020 ayaa marka actorkan saaxada ugu dambeysay iyo sidoo kale filimkiisii Fasarka Arifari Bata kaasoo marka u noqday filim marka average haddana filimka marka la fiiriyo Mahesh Babu sidoo kale directorka lagu magacaabo Trivikram combinationkiis waxaa laga filayaa filim classic marka tiyaatarada la saaro sidoo kale filimka marka la fiiriyo maalinta Berita ee filimka laga soo bandhigi doono gooskiisa ama 6 January 12 February 12 January filimka la daawan doono taasoo ka dhigan tahay hal toddobaad kadib in filimkan masraxa la saari doono ama jimcadan foodan ugu soo haysa sidoo kale filimka kale waa filimka marka lagu magacaabo Sandaf filimkan waxa hogaamiyay Kevin Katesh iyadoo filimka marka la fiiriyo jilayaal kala duwan filimka ku jiraan xitaa Nawasidu Sidiq oo filimkan wuxuu ka yahay laadan sidoo kale xitaa filimka actorka dhankaas Tamil ee Arya ayaa filimkan xitaa qaybka sidoo kale filimka gooskiisa aad ayaa loo soo dhaweeyay sidoo kale si harsana filimkan loo aasimay oo ka dhacan karo marka la fiiriyo gooska filimka laga soo bandhigay hadii noqon action iyo sidoo kale emotion xitaa filimka marka la fiiriyo BGM-ka ama muusikada gadaal filimka laga shiday aad ay marka u heersanaysa taasoo ka dhigaysa filimkan marka la fiiriyo Venkatesh in film action oo marka dhameystiran filimkan sanadka la imaan doono sidoo kale filimka kale waa filimka marka lagu magacaabo Nasami Range filimkan waxa hogaamiyay marka actorka lagu magacaabo Nagarjuna filimkan waa filim marka oo fariinta marka burcadnimada filimkan ku matalay Nagarjuna sidoo kale xidiga filimka lagu magacaabo Alali Naresh ayaa filimkan ku heliyo oo muuqaal kooban filimkan ku leh sidoo kale filimkan wuxuu ka mid yahay isku raayaasha marka feestada loo yaqaan Sakrati oo dhankaas Telugu ka jira filimka soo bixi doona waana filimka saddexaad loogu sugitaanka badiya marka la fiiriyo dhankaas Telugu sidoo kale filimka afraad la sugayo wuxuu ahaa filimka Eagle oo hadda shaaca laga qaaday shirkadda People Media Factory ee shaaca ka qaada filimka 9 February in filimka loo leexiyay maadaama marka la fiiriyo filimka tiyaatar ku filan oo san helin sidoo kale xitaa filimka marka la fiiriyo gooskiisa sugan filimka looma soo dhaweyn marka la fiiriyo filimada kale sidoo kale xitaa filimkan marka la fiiriyo jilayaal saameyn badan kuma jiraan xitaa marka la fiiriyo director iyo producer saameyn badan xitaa filimkan qayb kama ah sidaas darteed filimka marka la fiiriyo gadaal loogu dhigay 9 February ayaa filimka loo dibdhigay filimkan wuxuu ka mid noqon lahaa isku dhacayaasha marka feestada Sakrati jira dhankaas Telugu balse hadda filimkan uu ka ordo filimkan wuxuu fiiriyay firaqyada kale marka dhankaas Telugu ka jira hadii noqon lahaa fasaxyada kala duwan oo dhankaas marka la fiiriyo February marka la fiiriyo fasax kooban ayaa markaas ka jira waxaa fasaxaas marka inuu ka faa'iideysto filimka Eagle saaxiibada qiimaha badan haddii inta kaga soo tagno filimada Telugu haddana soo qaadanayna filimada Tamil oo marka la si weyn marka loo sugayo filimada ka mid ah filimka Lal Salam oo marka hogaamiyay Rajinikanth inkastoo filimkan marka uu hogaamiyay dhameystiran ka aysan hayn balse filimkan muuqaal oo kooban oo filimka dhameystiran marka ku leeyahay sidoo kale hogaamiyaha rasmiga waa filim hogaamiyalka waxa uu horeeyay Vishnu Vishal oo filimkan hogaamiyaha ka wada sidoo kale xigta marka lagu magacaabo Aishwarya Rajni oo marka Rajinikanth abuu yahay filimkan qaybka oo filimka tarsha kowadka Rajnina filimkan wuxuu ka rafsinayaa gabadhiisa marka Aishwarya oo filimka tarsha kowadka sidoo kale filimka kale waa filimka marka lagu magacaabo Captain Miller oo marka hogaamiyay Danush isagoo markaan xidigan la fiiriyo waqtigiisa ugu fiican marka ku jira maadaama marka la fiiriyo filimadiisa ugu dambeysay actorku marka ay noqonayaan kuwa marka guulo lixaad la gaara xitaa hadii aan soo qaadano filimkiisa ugu dambeeyay Sar ama Fati loogu yeeray kaasoo ahaa blockbuster ganacsigiisa marka la fiiriyo 100 koroor ka tilaabay haddii gadaal noqono filimadiisa ugu dambeeyay waxa ay filmo marka super hit sidoo kale hit marka u dhaxeeya haddana filimkan xisaab badan lagu magacaabo Captain Miller oo marka soo wada oo marka la daawan doono 12 January sidoo kale filimka jilayaal kala duwan ay ka soo muuqanaya Dr. Shifa Rajkumar xitaa uu ku jira oo marka dhankaasi farka Kanata ka soo jeeso kala Sandeep Kishan xitaa qayb ayuu ka yahay marka la fiiriyo Captain Miller marka la fiiriyo jilayaal kala duwan oo marka fanka kala duwan ka soo kala jeeday filimkan qayb lixaad filimka ka qayb qaadanaya sidoo kale filimkan gooskiisa dhawaanaya filimka la soo bandhigi doona 12 January filimkan wala daawan doona marka Danushna wuxuu rabaa inuu ka qayb galo marka la fiiriyo kalaasha kala duwan ee filimkan
uu la geli doono filimada kale ee ka mid yihiin Laal Salaam iyo sidoo kale filimo kale. Captain Miller wuxuu rajeynayaa markaa filimkan guul lixaad marka uu u gaaro marka lagu magacaabo Thanos. Sidoo kale filimka kale xiga waa filimka marka lagu magacaabo Ayalan, waana filim marka hogaamiye Dr. Shiva Rajkumar. Sidoo kale jilayaasha kala duwan kasoo muuqda waxa qayb ka ah Ragul Preet Singh, sidoo kale Yogi Babu. waa filim marka la fiiriyo science fiction arrimaha sayniska filimkan khuseeya oo marka filimkan marka la fiiriyo dhanka marka la fiiriyo tayada filimkan aadaya marka loo heer sare filimkan loo duubay sidoo kale cinematography meelaha lagu duubay filimkan aadaya filimkan loo shaqeeyay marka la fiiriyo aalada marka la fiiriyo VFX ka aadaya filimkan lagu dayay Sifa Karthikeyan oo xoraa marka la fiiriyo guuldawlada filimkii Prince marka kala kulmeen marka filimkan oo kaga soo kabdo Ayalan inkastoo marka la fiiriyo filimka Clash marka dhexda ka gal doono oo marka la fiiriyo Thanos sidoo kale marka la fiiriyo Rajinikanth filim oo marka filimkan uu kasoo u dhexda kaga soo dhacay filimkan waxay marka gadaal loo dhigo maadaama marka la fiiriyo filimkan budgetkiisu aad u xooggan yahay sidoo kale arrimaha science makhiyaligana filimkan uu khaseeyo marka Ayalan wuxuu qayb ka yahay marka la fiiriyo Clash ka dhankaasi Tamil ka dhici doona ay marka filimo badan ku jiraan Captain Miller sidoo kale Laal Salaam filimka ugu dambeeya marka la fiiriyo ama filimka afraad oo Clash ka qayb gali doona filimka marka lagu magacaabo Mission Chapter 1 filimkan waxa hogaamiye ka actorka marka lagu magacaabo Aaron Vijay sidoo kale xiriirta marka lagu magacaabo Amy Jackson ee filimkan qaybka waa filim kale xiiso badan oo marka Aaron Vijay la imaanayo filimka marka la fiiriyo Mission Chapter 1 ee filimkan lagu magacaabo waa filim marka arrimaha baaritaanka sidoo kale xabsiyada filimkan khuseeya filimka marka la fiiriyo teaserka ama goosgooskiisa aad ay filimkan loo soo dhaweeyay Aaron Vijay sidoo kale filimkan kaalinta ka qaatay filimka marka la fiiriyo inta ugu badan filimka dhankaas London ama UK ee filimkan lagu duubay waana filim kale xiiso badan marka la imaan doono Aaron Vijay hadaba filimkiisa ugu dambeeyay waa filim marka super hida taabada qiimaha barnaamijkan aan ku soo qaadanay marka la fiiriyo filimada Clash ka geli doona marka la fiiriyo Festada Sakrati iyo Bongal oo dhankaas Telugu iyo Tamil marka ka dhacaysa in filimadaas xiisaha badan marka lagu soo qaadan doono inkastoo marka la fiiriyo filimka Eagle oo hogaamiye ka Rafiteja uu baaqday 9 February filimkan la geeyay intaas ay ku soo gabagabeynayna saaxiibada qiimaha badan hadii aan soo qaadano akhbaaraadka OTT oo kuwa xiisaha badan waxa la soo qaadan karnaa filimka marka lagu magacaabo Indian Police Force oo marka hogaamiyalka Siddharth Malhotra sidoo kale xigta marka lagu magacaabo Shilpa Shetty sidoo kale xitaa waxa ku jira Vivek Oberoi filimkan waxa agaasimka ama directorka ninka lagu magacaabo Rohit Shetty oo marka looga haray marka la fiiriyo taxanaasha booliska oo marka qaybo hore ka sameeyay filmaan oo marka kamid Singam iyo sidoo kale Simba iyo Surya iyo Fashi haddana marka la fiiriyo film marka qaab taxana ama serious film loo dhigay ayo marka waxa hogaamiyal looga dhigay Siddharth Malhotra filimka marka la fiiriyo sanad 2022 ayaa filimka marka shaqadiisa soo socotay ku dhawaad hal sano xoogaa ayaa filimka shaqadiisa lagu waday bas hadda filimka si rasmi ah marka filimka shaaca loo qaaday barta Amazon bare filimka 19 bishan Janaayo lagu soo fasaxi doono isagoo marka la fiiriyo season 1 marka la soo fasaxi doono 19 January kadibna marka la fiiriyo season 2 la taaban doono filimkan xiisaha badan maanta waxa laga soo bandhigay goosgooskiisa rasmiga hore waxa laga soo bandhigay teaser yar oo kooban oo marka ka soo muuqdeen jilayaasha filimka oo Siddharth Malhotra marka qayb ka yahay goosgooska maanta la soo bandhigay inaba caadi ahaan Siddharth Malhotra kaalinta qaatay sidoo kale filimka fariinta booliska iyo marka la fiiriyo sirdoonka inaba caadi ahaan Siddharth Malhotra filimka qaatay Shilpa Shetty sidoo kale Vivek Oberoi garabka siinaya Siddharth Malhotra marka kamid ah ciidamada booliska sidoo kale filimka actionka filimka si loo sameeyo wahay marka la fiiriyo filimada ugu dambeeyay marka sameynay ninka lagu magacaabo Rohit Shetty oo lagu bartay marka la fiiriyo fariinta booliska haddana filimka loo ka xiiso badan oo marka taxana qaybka oo marka filimkan uu sameeyay sidoo kale filimka 9 January barta Amazon Prime lagu soo fasaxi doona sidoo kale filimkan Siddharth Malhotra qaybka marka la fiiriyo waa taxanayaal oo marka OTT-ga lagu soo fasaxi doona hadii aad soo qaad Siddharth Malhotra marka la fiiriyo tani marka la fiiriyo saameynta kadib actorka marka la fiiriyo OTT-ga marka ka qaraabanay oo filimadiisa ugu badan OTT-ga la soo dhigay xitaa filimkiisa hadda ugu dambeeyay Mission Majnun oo sanad ka hor la daawad OTT-ga lagu soo fasaxay barta Netflix kii ka horeeyay marka ahaa filimkii Shershah marka Kiara Advance la sameeyay xataa OTT-ga lagu soo fasaxay marka la Siddharth Malhotra dhankaas OTT-ga marka iska tagay oo filimadiisa marka la fiiriyo OTT-ga marka actorkana qabsaday filimkan ama serious kan xiisaha badan 19 Janaayo ayaa barta waxa lagu soo fasaxi doonaa Amazon Prime